لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka hore waa inaad macallimiintaada aad si fiican aad u garataa u daristaa nin walba meesha iyo qaabka wuxuu qaato iyo qaabka wuxuu taabay iyo wuxuu ka caroodo waa inaad si fiican aad u garataa qaabka ilaahku meesha ka jira iyo in shirkadada ku run yahay lawaaixda iyo qawaaniinta waa inaad si fiican ula socotaa. intaasi ardayga jacfirka ay gaar yihiin si guud waa inaan wadanka aanu ilaalinaa shuruucdiisa. wadanaynu joognaa طبعا waa laynu soo dhawey waa laynu ixtiraam waa laynu qiimeeyey waxaan inoo furay tacliimtooda baa inoo furay 90% kulina ku dhiganaa laaliga ceeb bayna ku tahay haddaynu ciqaabadaas raaxaysan doonaa. soomaaliya badan baa hawayel lahaa rajadeedu waa sidan inay naga noqon doono maxaa yeelay cudurkeedii ayaynu garanaa. qof kastoo soomaaliya maanta ha yaraado ha weynaado wuxuu ka sheekeynayaa sidaan uga baxaynaa dhibka. qof kastoo soomaaliya maanta wuxuu diidan yahay dhibkii aan su samaynay, wuxuu diidan yahay qabaliyadda iyo dhibkay leedahay, wuxuu diidan yahay qof kaloo soomaaliya waxa la yeelo, wuxuusan ku qanacsanayn soomaaliya say tahay, wuxuusan ku qanacsanayn magaceen loo soo dhaco. taas waxay ka dhigan tahay inaynu baraarugnay saalaadigeed waxaynu haray keliya waa ficilnaa bedelo. maadaama shalay lagu taagayay anaa wax badan laayay reerkeena awood badan baan haysanaa xoog iyo halaagkeena soomaalida haddii xoolaha soo qaadan saare xoolo markay kaalunaan marka koobaad maxay tahay inaad ka fakartay ama marka koobaad maxay tahay waxa koobaad ee kuu noqonaya furaha markay xoolo kaalunaan. markay xoolo kaalunaan waxa koobaad ee kugu soo dhaca ama waxa koobaad u saacidaya ama waxa koobaad ay tahay inaad garato maxay tahay dhinaca laga leeyahay maasha allah alawaasan tahay. mar koobaad waa inaad garataa inay baadi kaa maqan. haddii aad garato inay baadi kaa maqan tahay markaas waxaad ka fakeraysaa xaggee uruntay xaggee ka doontaa dhinacay aaday markaas ka fakeraysaa. laakiin shada kale waa inaad garataa inay wax kaa maqan yihiin. haddii wax kaa maqan yihiin aad garanay wax kaa maqan yihiin baad doonaysaa waa inaad ku qabataa soo ma qofku waa tacliinaya fursada dhow iyo camalka dhow sida aad qayb uga noqotay si aad u noqotay qof naajixa nolosheeda ka gaaray bulshada wax u qabta waa inaad u diyaargarowdaa. maadaama dadkii dhismaayo dadkii fahmeen wanaaggii la fahmay xubihii la gartay waxay soo dhawaaday waktigii aynu wax qabsan lahayn waktigii aan caalamka la qabsan lahayn sida laajin qof kastoo naga mida waynoo diyaargarowdaa. fursadii ugu dambeysay oo diyaargarowgaaga ku jirtaa fursadii ugu dambeysay oo diyaargarowgaaga ku jirtaa. intaas ay iga haato macluumaad guud aad uga tihiin waxaan rabaa inaan waxyar ka dhaho maxay tahay xiriirka ka dhexeeya beeraha iyo dalkeena. xiriirka beeraha iyo dalkeena ka dhexeeya waa maxay? maasha allah beeruhu waa beeruhu maasha allah jazakallah khair barakallah fiik. okay si guud beeruhu aadamaha faa'iidooyin kala duwan yihiin. beeraha waxaa oran karnaa marka biyaha laga imaado waa shayga labaad ee nolosha. maxaa yeelay ma noolaan karno cunto la-aan ma noolaan karna ma noolaan karno cunto la-aan. sida laajligeed shayga labaad ee nolosha ayaa fursad yeesheen inaad barataan. waxaad kala fursad haystaan soomaaliya inay tahay dhulbeereed ayna saxarahayn. gobol kastoo soomaaliya idinka aga cilmi badan laakiin sidaa khubaradu ay sheegayaan wixii waa u geeri karaa gobol kastoo soomaaliya kamid waa u geeri karaa. meelin markaa fursad tiirkii koowaad waa biyaha nolosha, tiirkii labaadna waa cunnada waa asaasi. waxna waa asaasiyaad waxna waa megaa soma
أساسيات اللي كان هي الخبيرة عشان هنا كده سيبونه بس الوام وبيروح waxaan horiyaa labadan waa dalka ka sugsheen asalka dalka ka sugsheen sida la adiga fursad waxaa haysataan anina bacadahayn haddii aynu wax beerano oo beerana si fiican uga faa'iidaysano oo fakriga aynu la dagaalano soo horumarna caalamka waxa ugu badan ee dhaqaalaha la geliyo uu ka soo noqdo waa dhulka waxyaalaha kale inta badan kushaqaysa noqdaan laakiin beeruhu intaa gashatay ka badan baad keenaysaa maxaa yeelay waa cusur daruuri waxaad ogtihiin soomaaliya waxaa laga cunaa wax badan lagu sameeyey ma suurtagal ba ama waxaa la qaadan karaya inagoo dhul beereed ah in aynu nolosheena faysiga ay ku xiran tahay banaanka waxaa la qaadan karaya inagoo nool qarnigii kale labaatanaad maanta waxaad kusoo yeesheen inaad cilmiga beeraha u timaadaan suudaan inaad jaxayfiyada iyo kuliyadda ugu shidan loo hagar baxay ugu sarraysa aada gashaan ayaad kusoo yeesheen waxaan iniga rajeynaya waxaan iga rajeynaya fursadaas oo wada garanaysaan ay aada xoojisaan waa mushkilo qofka ku garan waa fursada marka agtiisa taalo wuxuu garan doonaa xilli ay dhaaftay waxaad ogtihiin oo garanaysa in badan niga mida walaalaheeya soomaaliyeed iyo soomaaliya joogaan ay jeclaan yihiin waxaad ogtihiin waddan ay mar walba abaara ka dhacaan in ka sokeeno sanadkii ama labadii sanado mar ay abaara ka dhacaan dadku ay baahi u dhintaan suurtagal miyaa inagoo dhalinyaro ah beera haysana caafimaad qabna inay dadkeedu ay cunno la-aan dhintaan suurtagal miya yang sudah kali, wah ini orang awal, ini orang awal. Kalau ada orang yang berkata, wajib untuk Allah, mereka sampai orang awal. Lagi sekedar makan nasi, musuh api, melalui makan soberan, mana soberin, apa yang negara lagi yang negara berperang orang. Asal sekali sehagagin, kalau banyak sehagagian. Ini tadi. هنقول شعرنا إن شاء الله تعالى إذا بعض الصوماليين السودان أعضاء الصوماليين السودان أنت رادو شغالين علي تنين بدن معلومات بدن يوسف الدين قاعد كونوا دقاتشين قاعد كونوا هذا دقاتشين ربع